بسم الله kusoo dhawaada janalka waa anigoo Zahir Maxamed waxaan leeyahay ciid wanaagsan maanta waxaan ahayd maalmihii ciidda weli noo socdo sanadkiis kale bashbashi barwaaqo Ilaahay nagu gaarsiiyo caawa waxaan qaadan doonaa casharkeenii ugu dambeeyay ee qaybta SPSS-ka ee research la xiriiray marka dhawaanahan waa dib baa iskaga mashquul xogaa dib baa ugu dhacay casharka ka soo daahay marka waxaan isku daynaa inaan caawa qaadano casharkeenii ugu dambeeyay ee qaybta oo SPSS-ka la xiriira research-ka casharkeen ugu dambeeyay wuxuu noqon doonaa ANOVA maxaa la dhahaa ANOVA one way qaadan doonaa midka aadka ugu badan yahay marka research-ka la isticmaalo aad loo isticmaalo kadib waxaan arki doonaa qaabka loo SPSS-ka loo sameeyo laakiin marka hore buugaan ka bilaabaynaa buugaan ka fahmaynaa introduction-ka iyo macluumaadkiisa kadib waxaan tegi doonaa qaybta SPSS-ka qaybta marka dambe aan ku qaadan doonaa qaabka loo sameeyo ANOVA marka noo bilaabo insha Allah buugga IBM-ka badanaa chapterka 12aad ayaa ka one way ANOVA procedure marka horta ANOVA maxaa laga soo gaabiyey ANOVA waxaa laga soo gaabiyey waa analyze of variance waaye badanaa waxaa loo isticmaalaa inuu combine gareeyo ama isbarbardhig ku sameeyo meanka oo wax ka badan laba independent group waxaan soo qaadanay t-test yaa soo qaadanay badanaa wuxuu ahaa labo ahaa hadda kan labo ka badnaanaa macnaha groupka oo la barbardhigayo independent ah waa more than 2 waaye marka marka rabto inaad isbarbardhigto laba variable iyo independent group ah oo arabta midkiiba mid kale saameynta ku leeyahay markaas aad isticmaala ANOVA okay sidoo kale ANOVA waxyaalaha waa statistical tool waa kaas oo badan oo macna checking ku sameeyo meaniska iyo groupka wax ka dhaxeeyo iyagoo loo fiirinayo significant different iyo significant oo ma leeyahay ama significant dhexdooda gudaha different ka dhaxeeya between group inay ka dhaxeeyaan wax oo difference ah teeda kale markii inaad sii raacdid waxaa arkaysaa wuxuu ka hadlaa qaabka oo meanka uu iskaga dhaxeynaya introduction of one way analysis of variance analysis of variance waa ka soo hadalnay wuxuu yahay markii inta joogtid waxaa jiro in badanaa category la qaadanayo oo ANOVA waa inuu mar walba independent uu ahaadaa always continuous macnaheedu waxaa waa interval ama ratio inuu ahaado waa dependent aya halka independent uu ahaadaa always categorical oo ama group inay yihiin tusaale ahaan kale waxaa wax walba oo values leh oo 1 2 3 oo kale within variables oo groupkaas ah waana sidoo kale ahaadaan equal variance teeda kale independent uu ahaadaa normality distributed inuu yahay okay teeda kale assumption jiro oo hypothesis test ah marka null hypothesis iyo alternative hypothesis marka isna waa in la fiiriyaa haduu oo hypothesis-ka oo null hypothesis-ka uu reject gareeno taas macnaheedu waxay noqonaysaa inuu difference ka dhaxeeyo within groups-ka hadii aan reject gareenin macnaha ama ku fail garowno in null hypothesis reject gareeno waxay noqonaysaa macnaha inaysan wax oo same yihiin oo wax difference aysan jirin okay marka buugan wuxuu soo qaadanayaa laba example oo soo qaadanaa oo la xiriira quiz score iyo ethnic groupka macnaha quiz score-ka imtixaanka wax la keenayo iyo ethnic groupka maxaa ka dhaxeeya macnaha ma ardayda oo black ah iyo native-ka iyo white-ka xagga grade-ka ma kala duwan yihiin in la ogaado oo fiirina marka qaybta result-ka aan tagno waxyaalaha u soo baxaan fiirna kan steps-ka aan arki doonaa SPSS-ka markaa tagnaa saxeynaa laakiin se result-ka rabnaa inaan aragno kadib procedure-kan anaga nagu celinayo markii SPSS-ka aan tagno okay output-ka waa kana output-ka wuxuu sheegaa meankooda kan descriptive-ka caadiga waa standard deviation-ka meanka qof wuxuu yahay
waxaan tegaynaa qaybta oo ANOVA kana. ANOVA waxay sheegay badanaa waa as general waay, macnaha markii general loo fiiriyo waa 0.08 waay. taas macnaheedu waxaa waaye macnaha hadda waxaa noo soo baxay significant ma aha, sidaa daraaddeeda waa same, wax difference ah ma jiro uu sheegaa. maxaa yeelay b value-ga wuxuu ka wen yahay level of significance of 0.05. marka aan gudaha markii loo galo oo construct lagu sameeyo ayaa la fiirinayaa. waa kana macnaha Asianka iyo Black-ga midkana ah white iyo Hispanic-ga way ku kala duwan yihiin xagga imtixaanka, macnaha difference ka dhexeeya maxaa yeelay significant waa. okay, kan significant oo ka dhow yahay less than 0.5 maaha, laakiin Asianka iyo Hispanic-ga significant ka dhexeeya, macnaha xagga imtixaanka way ku kala duwan yihiin marka grade-kooda loo fiiriyo. okay, intaa waa aragnay, kaliya waxaa tegnaa SPSS-ka xaggaan ku samayn doonaa insha Allah. okay, aan tagno waxaa sameynaynaa hal variable aan qaadanaynaa iyo hal oo scale ah ama interval ama scale ah, iyo hal oo waxaa qaadan doonaa oo category-ga leh oo macnaha kala cad. waxaa tusaale waxaa noo efficiency waxaa qaadan doonaa iyo level of education. okay, marka aan la isgareyno combined mean 1 ANOVA. okay, aan ka dhigno kana aan ka dhigno meeshaan dependent listiga waxaa gelinaysaa continuous variable kaaga oo dependent ku ahaa gelinaysaa, halka level of education aad gelinayso categorical variable ka aad rabto inaad sameyso. saa hore kugu sheegay macnaha ANOVA as a journal bis uu sheegaa, macnaha wuxuu ku dhahaa category-gan oo efficiency oo kale level of education, macnaha markii loo eego oo primary iyo secondary iyo university marka loo eego xagga efficiency wax difference kama dhexeeyo kaliya ku dhahaa. laakiin gudaha dhexdiisa oo tusaale ahaan level of education ka dhexdiisa saameynta ay ku leeyihiin iyaga dhexdooda kuma sheegayo. marka sidaa daraaddeed waxaa u baahanahay post hoc test inaan ku darno si oo noo ogaano wax inay saameyn gudaha difference ay jirto. marka waxaa kaliya ku ogaanaynaa waxaa waaye all waxaa jiro dhowr nooca jiro oo la isticmaalo, laakiin aniga waxaan qaadanaynaa buuga midka uu qaatay oo chef ah, chefkana qaadanaynaa, kadib tigtisaa, kadibna waxaa dhahdaa continue. markaa dhahdid kadib okay aan dhahaynaa. okay, ANOVA waa joognaa. ANOVA markii fiirisid sum of squares-ka iyo degree of freedom-ka, kadib waxaan dhan xisaab ay ku imaanayaan, mid walba mid kale ay buuxinaysaa tusaale ahaan. marka inta waxaa muhiimadeedu waxaa waaye waa significant inaad fiirisid b value-ga. b value-ga waa 0.572 waaye, macnaheedu waxaa waa boqolkiiba 57 waaye, aad uu sareeyaa markii 5% loo. sidaa daraaddeeda waxay sheegaysaa in level of education-kayna oo dhexdiisa inay saameyn oo ama kala duwanaansho uu ka dhexeynin marka loo eego efficient ah, macnaha primary secondary iyo university efficientooda wax iyaga dhexdooda saameyn oo ama kala duwanaansho ah kama dhexeeyo marka loo fiiriyo efficient ah ay qabanayaan. okay, gudaha usii galno macnaha diblomaha iyo bachelorka markaa fiirisid significant miya waa may. taas macnaheedu waxaa waa same effective ama same waxaa waaye measurement ay ku leeyihiin marka loo eego efficient, macnaha wax difference kama dhexeeyo marka efficient loo fiiriyo. okay, diploma iyo master sidoo kale wax efficient ma jiro. marka aniga daatadeeda badanaa wax oo significant ah kuma jiro, laakiinse haddii significant micnaheed tahay waxay noqonaysaa in levelkaas iyo levelkaas kale difference ay ku yihiin xagga efficient, oo macnaheedu waxaa waaye efficient markii loo fiirinayo labadaas level difference waaye macnaha. marka taas daadeed waxaa loo baahan in la tixgeliyo
midkee badan midka kale waxaa ku go-an goonaa mean difference yaa sheegayo kaliya waxaa la badanaa lala report gareeyaa markay significant tahay haddii significant ahayn badanaa lama report gareeyo oo tesiska buugaagta lama qoro marka homogeneity waxaa ku fahmaysaa 1 iyo 2 inuu sameeyaa la rabay laakiinse maadaama ay yihiin same oo ah wax difference oo aysan jirin hal god 1 ay soo wada galayaan marka sidaa daraadeeda aniga daatada ahaayo daata kale maybe ma hay hadda laakiinse daatadan wax significant ah ma jiro oo wax difference ah ma jiro hadda all waa same equal waaye markii loo fiiriyo variableka efficiency marka intaas waa qaadanay laakiinse reportingka maadaama oo significant jirin laakiinse reporting ma qorayno laakiin waa nitusaa qaabka oo reporting loo sameeyo tusaalahaan oo kale marka ANOVA joogtado kale variableskaga aa qorto oo kale waa sheegaysaa v value-ga b value-ga mid walba haddii aad samaynayso oo kale 3 variable 4 variable haddaad tahay 4 variable aa qoraysaa variable b value waxaa haysata significant haddii jirto inta significant ah clear la qoraa kana chefka waaye waxay kaa caawinaa oo kale level of education oo kale marka inta gelisid in wixii significant kuu noqdo oo kale inaad isba dhigto kadib mean difference aa qorto kadib significant oo b value-gooda aa qorto reporting saasaa loo sameeyaa laakiin maadaama anaga oo daatadeen hadda wax oo significant aysan lahayn ma sameynin marka laakiinse tabtana raaci doontaa qaabkana loo sameeyaa kadib saamka u report garaysid kaliya conclusion aa sameynaysaa oo ah waxaa dhihi kartaa waxaa rejected gareynay null hypothesiskeena oo ah in oo no difference uu ahay waxaana qaadanay the alternative hypothesiska oo ah inuu jiro difference oo no taasoo keentay in b value-geena uu ka hooseeyo less than 0.5 sidaa daraadeeda aan waxaa ku qaadanay in variable hebel ay ka dhexeeyaan difference okay saas camal sameyn kartaa soo calculate waa sida as usual ka caadiga ahayd intaas waa fahamteen please like share videoga subscribe channelka dheh casharkeena ugu dambeeyay oo thesiska waaye aan qaadanay oo SPSS la xiriiriya nakasti waxaa qaadan doonaa koorsooyin kale ama SPSS ahaato ama aha softwares kale ahaato ama cashar kale caadi ahaato insha Allah nakasti waa inoo mar kale iyo casharkeena xiga waxaan iga tagaa sidaas iyo nabadgelyo